dowladda Suudaan ee ciidamadu maamulaan ayaa diiday casuumaadda la xiriirta inay ka qayb galaan shir madaxeedka dalalka urur goboleedka IGAD oo ka dhacaya dalka Uganda. Shirkan ayaa waxaa dhawaan cilaamiyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ah gudoomiyaha urur goboleedka IGAD isagoo oo markaasi ku baaqay in shir degdeg ah oo looga hadlayo damaca guracan ee dowladda Itoobiya ay jawaab ka bixiyaan urur goboleedka IGAD. shirkan oo ka dhici doona 18 bishan January 2024 dalka Uganda ayaa qorshuhu waxa uu yahay in laga jawaabo baaqi ay Soomaaliya soo saartay ahaa in wadamada urur goboleedka IGAD ay kulan ka yeeshaan damaca guracan ee dowladda Itoobiya. hase yeeshee dowladda Suudaan ee ciidamada militariga ay hogaamiyaan ayaa aan ka qayb gali doonin halka garabka ay ishayaan ee RSF ay sheegeen inay ka qayb gali doonaan shirkaasi. IGAD ayaa marar badan isku